مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام وعن oo wanaagsan daawadayaal idilaantiinba meel kastoo aad joogtaan ramadaanul kariim ayaanu idin leenahay maalmaha khayrka iyo barakada badan ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaynu ku guda jirnaa kuna soo dhawaada barnaamijka hiiga iyo laabta aad ku heyseen in badanna adinaga dhowraysan inaynu idinkaga soo tabino telefishinka dalsan waa barnaamijka hel hadiyad oo shirkadda Subarsan Design ay ugu talgashay in hadiyada kala duwan ay ku gaarsiiso dhalinyarada magaalada Muqdisho kuwaasi oo su'aalo kala duwan aynu weydiinay iyaguna ay ka jawaab celiyaan kuwii jawaabaha bixin waayana ay fursad u siiyaan saaxiibada kale waxaadna naga daawanaysaan mar kale telefishinka dalsan sidoo kale baraha bulshada sida Facebooka mar kale ku soo dhawaada barnaamijka hel hadiyad dhinaca farsamadu waa Maxamed Xuseen Maclow anigoo xasan lakaya barnaamijkeeda la socodsiinaya Subarsan hadiyada ay ku bixinaysaa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha iyo gacaltooyada lahaa ee hel hadiyad زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام واتهي daawadayaal ramadaanul kariim ayaynu idin leenahay gudagalista barnaamijka hel hadiyad oo su'aalo kala duwan dhalinyarada Soomaaliyeed aynu ku weydiinayno waxaana barnaamijka taabagelinaya Subarsan oo sanad waliba telefishinka dalsan ka sii baahisa barnaamijkan hel hadiyad oo ay taabageliyaan mid kamid ah dhalinyarada magaalada ayaan la kulmay saaxiib soo dhaw magacaaga Cabdicaziis Nuur Siyaad Cabdicaziis waxa kamid tahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho aad weyn ma markii kugu horeysay waa barnaamijkan aad ka qayb qaadato may marar badan ay ka qayb qaateen ay nasiib mu yeelatay inaad hadiyad ku hesho in badan ay numberka koowaad ilaa numberka shanaad numberka aad isleedahay maanta ku tijaabi nasiibkaaga waxaan nasiibkayga ku tijaabi numberka labaad lambarka labaad ee barnaamijka wuxuu ku leeyahay sida tan waxaad sheegtaa wax ama shay afar lug leh haddana aanan awoodin ama aanan socon karin waxaad sheegtaa shay afar lugood leh haddana aanan socon karin mar saddexaad ma kugu celiyaa waxaad sheegtaa shay afar lug leh haddana aan awoodin in uu socdo haye waa kursiga maxay leedahay kursiga waa hagaag kursiga hambale ayaynu leenahay saaxiibkii koowaad ee daafurka barnaamijka hadiyadii ay ugu talgashay Subarsan ayaynu guddoonsiinaynaa saaxiib soo dhawaaya ku leeyahay waa dhaw mastiin waa maasanta waata saaxiib waxa ku guuleysatay koofiyada ay kugu talgashay shirkadda Subarsan soo dhaw ayaan ku leeyahay inkastoo dadka bidaarta la aan filay inay koofiyada ku macaan dhimala laakiin bidaarta 15 marka gaaro ay rajaynayna bidaar soo baxtana ku qarnaa insha Allah waata aad u mahadsantahay
waa tahay daawadayaal su-aashii koowaad iyo saaxiibkii koowaad ayaa hadiyad ku helay Super Sandhisan ayaad nagala taabagelinaysa barnaamijka Dalsan TV-na waad ka daawanaysaan saaxiib kale oo dhalinyaro ah ayaan gudaha magaalada Muqdisho aan kula kulmo ugu horeyn magaciisa ayaan weydiinaa saaxiib magacaaga xuseen cabdi allah xuseen dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa ka mid ah aad iyo aad markii kugu horeysay waa barnaamijkan ka qayb gasho aad iyo aad ayay nambarka koowaad ilaa iyo nambarka shanaad nambarka koowaad nambarka saddexaad nambarka afraad nambarka shanaad nambarka labaad ayaa baxay haye nambarka lambarka afraad nambarka afraad ee barnaamijku wuxuu ku leeyahay sheeg waxa dunida ugu macaan ee uu carabku dhadhamiyo waxaad sheegtaa waxa dunida ugu macaan ee uu carabka dhadhamiyo xandhuuftaada igu celi xandhuuftaada waa hagaag shayga ugu macaan ee dunida uu dhadhamiya carabka waa xandhuufta jawaabta uu ka bixiyey waa jawaab sax ah saaxiib soo dhowow hadiyadaada ayaa gudoomaysa aad iyo aad waa mahadsantiin jazakallahu khayr waa mahadsantahay waa tahay saaxiib soo dhowow ayaan ku leeyahay ramadaanul kariim mid lamid ah insha Allah ramadaan mubaarak markii kugu horeysay ayuu yahay markii ugu horeysay oo aan ka qayb gala tartan oo waqti nasiib ah waa mahadsantahay aad baad u mahadsantahay زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو akhyaarta ina daawatay mar kale ramadaanul kariim ayaanu idin leenahay barnaamijka helaadiyad ayaad la socotaan telefishinka dalsanna waa uu baahinayaa su'aalo kala duwan ayaanu jecelnahay dhammaan dadka aynu kula kulanno oo waqtiga inoo saamaxo gudaha magaalada Muqdisho ayaanu jecelnahay su'aalo kala duwan oo ah diini iyo waliba maadi iyo su'aalo caqliyan looga jawaab celinayo waanu jecelnahay daayirta inaynu weydiinay dhammaan dadka da'aha kala duwan ee barnaamijka uu la hadlo markan barnaamijka helaadiyad gabar ardayad ah ayaa iyadoo nasiib u yeelatay in ay barnaamijka ka qayb gasho oo aanu gudaha magaalada Muqdisho aynu kula kulanno ugu horreynna waxaan hor dhigay magaceeda soo dhow magacaaga fartuun fartuun markii kugu horeysay oo aad barnaamijkan qayb ah ka noqoto maya meeqa mar ayaa ka qayb gashay 3 mar waaw 3 mar saddexdii mar ma guuleysatay marka haa hadiyado kala duwan ayaa heshay haa waan gartay nambarada miiska inoo saaran waa nambarka koowaad nambarka saddexaad iyo nambarka shanaad ee barnaamijka nambarka isku dayaysaa nambarka saddexaad nambarka saddexaad ee barnaamijka waxa uu ku leeyahay sheeg shay ay laftiisa ka korayso hilibkiisa waxaad sheegtaa shay ay laftiisa ka korayso hilibkiisa haye haddii aan kugu celiyo su'aashan waxay ku leedahay sheeg shay ay laftiisa ka korayso hilibkiisa hilibka fursad labaad ayaan kugu celinayaa haye geel ma aadan garan saddexdaadii fursad ayaa ku harta fartuun jirka bini'aadanka
waa mahadsantaa fartuun waa isku dayday laakiin jawaabta rasmiga ma aadan haleelin waqti kale ayaan kuu rajaynaynaa waa tahay daawadayaasheena qiimaha badan bisha barakaysan ee ramadaan tobankii dambe ayaynu ku guda jirnaa su'aal weydiinta iyo saaxiibada intaynu magaalada dhex soconayno la kulmayno su'aalaha kala duwan aynu ku weydiinayno barnaamijka Hel Hadiyad oo ah barnaamij xambaarsan macluumaad kala duwan ee su'aalo iyo sidoo kale jawaabo oo ay bixinayaan dadka aan la kulanno wiil kale oo arday ah ayaa nasiib u yeeshay in barnaamijku la hadlo alo magacaaga saaxiib maxamed abuukar maxamed waxaa ka mid tahay ardayda wax ka barata magaalada muqdisho sax su'aal ayaa ka faa'iidaysi u baahan isku day kartaa insha Allah su'aashan waxaa ku leedahay waxaad sheegtaa shay laftiisa ay ka korayso hilibkiisa shay ugu celiyaa su'aashan waxaa ku leedahay sheeg shay ay laftiisa ka korayso hilibkiisa saddex fursad ayaa haysataa oo aad ku tijaabin karto jawaabtaada laftiisa ma korayso mar kale ayaan kugu celinayaa sheeg shay ay laftiisa ka korayso hilibkiisa ukunta jawaabta aad bixinayso ukunta waagaag jawaabta su'aasha uu ka bixiyey waa mid sax ah waana ukunta soo dhowo ayaan ku leeyahay waxaad ku guulaysatay hadiyad ay kugu talagashay shirkadda Supersign Design insha Allah waa ku fanaxsanay hambali sidoo kale waa tahay daawadayaal ardaygaasi su'aashii la weydiiyey wuxuu ku guulaystay hadiyadda Supersign Design oo ah koob markaa naqshad qurux badan ay saaran tahay saaxiib ku shaaxay ku qaxway waliba ku mishaaray saaxiib insha Allah sidoo kale inagana laakiin su'aashii markii ka jawaabaysa cabaara fikirtay waxa u maleynaa in lagu sheego sax waay ma lagu sheegay ma ilaa ko isku dayasmi waa mahadsantaa soo dhowo زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل فأشرق الأمل شبابها بذل فأشرق الأمل مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو waa tahay daawadayaal barnaamijka Hel Hadiyad qaybihii dambe ayaynu ku guda jirnaa iyo weliba dhalinyarada kala duwan iyo ardayda aynu kula kulanno magaalada muqdisho gabadhan ardayda ah ayaan leeyahay soo dhow magacaaga caasho caasho ma markii kugu horreysay oo barnaamijkan qayb ka noqoto meeqa mar aad ka qayb gashay midkana saddex way saddex jeer qayb gashay waagaag waxa diidam ku heshay barnaamijka waa tahay nambarada miiska inoo saaran waa nambarka koowaad iyo sidoo kale nambarka shanaad nambarkay isku dayaysaa koowaad nambarka koowaad ee barnaamijku wuxuu ku leeyahay waxaad sheegtaa boqorka xayawaanka baalalayda waxaad sheegtaa boqorka xayawaanada baalalayda mar saddexaad haddaan kugu celiyo sheeg magaca boqorka baalalayda soo dhowow haddaan isku day waa gorgorka haddii aad isku daydo gorgorka waagaag hambali ayaynu leenahay caasho oo dhowr mar barnaamijka ku guulaysatay hadiyado jawaabta ay bixisay waa mid sax ah waxa weeyaan boqorka baalalayda waa boqorka la yidhaahdo gorgor hambali ayaynu ku leenahay soo dhowow maasanta hagaag waa hagaag hambali ayaynu ku leenahay hadiyadda aad ku guulaysatay iyo jawaabta aad bixisay maasantiin soo dhowow waa tahay daawadayaal weli waxaa naga daawanaysaan telefishinka dalsan xarunta dhexe ee magaalada muqdisho iyo baraha bulshada sida facebookga barnaamijku waa Hel Hadiyad waa barnaamij macluumaad kala duwan iyo su'aalaha aynu ku weydiina dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho su'aalahaasi oo ah qaybaha diiniga iyo maadiga oo aanu jecelnahay su'aalahaasi qofkii ka jawaab celiya in shirkadda Supersign ay hadiyado kala duwan ay bixiso hadiyadahaasi oo isugu jira kuwa ay u talgashay macaamiisheeda kala duwan iyo saaxiibada nasiibka u yeeshay shirkaddu waxay diyaar kula tahay in dhammaan adeegyada kala duwan ee daabacadda ay ugu talgashay bulshaweynta Soomaaliyeed inay ugu adeegto
tayo wanaagsan weliba qiimo macquul ah oo weliba ku raaligelinaya ramadaanul kariim ayaanu idin leenahay. waa tahay mar kale ramadaanul kariim daawadayaasheena qiimaha badan waxaan nagala socotaan telefishinka dalsan dhalinyaro kala duwan ayaan su'aalo weydiinaynaa saaxiibkan ayaa kamid saaxiib magacaaga soo dhawow. waa dhawahay walaal magacaygu waa Bishaar Isaaq Maxamed. waa hagaag Bishaar ma markii kugu horreysay barnaamijkan? haa waa hagaag hal su'aal ayaa hartay oo ah nambarka 5aad su'aashu waxay ku leedahay sida tan waxaad sheegtaa wax aan weligaa noloshaada ka tegaynin. haddii aan kugu celiyo waxaad sheegtaa wax aan ka tegaynin noloshaada. marka la igu celi adoorale waxaa leedahay su'aasha sida tan waxaad sheegtaa wax aanan ka tegaynin ama kaa tegaynin noloshaada. noloshayda inta ka dhima waxaanan iga tegaynin wallaahi haddaa isku dayo waa magacayga magacaaga waa hagaag hambale ayaynu leenahay saaxiibkaasi su'aashii aan weydiinay waa uu ku guulaystay soo dhawaan ku leeyahay saaxiib. waa tahay daawadayaal saaxiibkaasi koofiyad ayuu ku guulaystay hambale ayaynu leenahay waxaanan weligaa kaa tegaynin waa magacaaga saaxiib soo dhow. aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiina reer dalsan. waa mahadsan tahay. مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام waagaag daawadayaal inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa qaybtan barnaamijka hel hadiyad oo subarsan hadiyad ay ku bixinaysay maxamed xuseen maclow ayaa barnaamijka kaamirada iga saaciday anigoo xasanlaka ayaa idinla socodsiinaya barashiq cabdullaahi bangaaldeejna su'aalaha iyo kaalin kala barnaamijka midlacan intaanu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.
مقدشو سلام أهلها كرام نعم أحبها مقدشو سلام مقدشو سلام زاحت الركام عاشت انسجام زاحت الركام وعاشت انسجام شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو شبابها بذل مقدشو فأشرق الأمل مقدشو مقدشو سلام أرضها سلام عيشها سلام أهلها سلام مقدشو سلام